الحمد لله. horta masalada waxay ku xiran tahay shilku sida uu dhacay in loo ogaado. Mas'aladan shilalka gawaarida waxyeelooyinka ku dhaca ama dad ku soo gaara isku xukun maaha. saddex qaybood bay xukunka natiijada ka soo baxday sharci ahaana ijtihaadaadka culimada la mas'ala zamankan cusub weeye. marba la barbar dhigo gaadiidkii la wadan jiray laba gaadiid oo isku dhacay laba doomood oo isku dhacay markab oo isjiirayo culimadii hore ay wax ka yiraahdeen iyo gaadiidkan gawaarida iyo jidadka marayo hadda waxyaabo badan kaga duwan waxana la wadaaga marka la isbarbar dhigo mar waxa dhacda in dambiga la saaro ninka darawalka oo khaladka isaga uu leeyahay marna waxa la saaraa khaladka boqolkiiba boqol qofka dhibanahay wax gaaray oo isaga khaladka iska leh marna waa khaladka waa loo qaybiyaayo labadaba way yeeshaan de su'aashan aad weydiisay waxaan garan kari lahaa ama qiyaasi kari lahaa haddii qaabkii wax u dhacay su'aasha ay la socdaan muhiimadu qaacida guud baan marka bixinayaa su'aashaadana kelmad baan ka dhahayaa qaacidada guudi shilkan baabuur ee dhacay iyaad xilkiisii iyo mas'uuliyadiisii dayacay bay imanaysaa darawalku haddii uu dayacay xilki iyo mas'uuliyadii uu lahaa ama xawliga gaarigu ku socday speedkiisu dayacay oo midaan la ogolayn ama meeshiisa aan ahayn buu ku waday ama gaariga ka warqabkiisii iyo ka shaqayntiisii taayiradiisii saliidiisii buu isagu dayacay ama gaariga haadka uu haystay iyo khadka uu ku socday baan kiisi ahayn ama meesha uu marayay baa godod iyo wax lahaydo inuu iska ilaaliyo la rabay telefoon buu ku mashquulay wax kale ku mashquulsana uu qayilsana waxyaabo badan baa iman kara haddii ninka darawalkii marka la qiimeeyo isaga taaddi xaddiisii uu gudbay ama waajib uu ilaalin lahaa oo dayacay ay timaado wixii ka dhashay isaga qaadaya diyadeeda duu ka soo dhuftay waa qisaas laakiin hadduusan kastoos aynan ahayn diyadeeda isaga qaadaya haddii hada shilkan dhacay ee qofka ku dhintay noocaas uu ahaa diyaabaha diyadii baa lagu leeyahay kafaaradiina waa lagu leeyahay hadduusan isagu haba yaraatee wax qalada lahayn oo qofka dhibanaha uu lahaa gaariga wadadii socda buu isagu ka booday qof weyn mukallaf u ahaa bootintuu booday dabayshii baa qabato gaarigiiba taayirka ku dhuftay wadadii meeshii uu taagnaa wadadii la socday baan meel aan dad mara ahayn buu ku soo booday xaaladaha saas oo kaleeta khaladka waxaa iska leh qofka dhibanaha ay ka mid yihiin ninka darawalkaana wax tacaddi ama samaynin haddii labadoodu isku jir ay tahay kana qayb khaladka kaliya iska qaban karay kana meel khalada ka soo galay muddo intay la ekayd baa boqolay loogu qaybiyaa guud ahaan saddexdaas suuro unbuu xukunka nihaayiga ah ku soo dhammaada marka la garta say wax u dhaceen alxukmu cala shay farcun can tasawuri haddaba laba adiga ay kuu furan tahay inaad qaabkay wax u dhaceen keento oon markaa waxay nala tahay xukun sharciga intaan ka garanayna haddii aan garanno weeye aan kuu sheegno iyo adigu inaad leedahay kollaba hadduu dhintay say u dhaheenna u garan maaye waan iska bixin magtii inaad dhihi oo aabbahiisaan u bari yeeli lahaana waa khiyaar adiga kuu furan khiyaarka saddexaad ee furan ee soo xasustay waxaa weeye inaad tiraahdo dee sidiina ma garanayo culayskaana saa kuma qaadi karee isaga iyo aakhiradiis meesha isla aadaan billahi tawfiiq su-aasha wuxuu kaloo raaciyay qabiilkay wax diya ama kala qaataan iyo mag marka maxaan sameeyaa haddii mag loogu yeeshay xitaa qabiil ahaan waa waxba qabiilku ma kala qaataan qabiil ma cafii karaan mag qoys kale ee dhaxal kale waa cafii kara marka iyagu de idinka cafiyaana de waa cafis haddaan idinka cafinna de xaqoodii bay leeyihiin waase haddii aabbaha lagu yeesho wey ma lagu leeyahay xaqii aabbaha qaabkay wax u dhaceen